Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa inoo soo socday barnaamij la magac baxay badbaadada qoyska. Waxaana marinay mowduucii ku saabsanaa noocyada doqonta. Doqonta waxaan soo sheegnay inay tahay 10 nooc oo u dhalay odaygii doqon ahaa. 10ka nooc marka saddexna isku baab ahaayeen, saddexna isku baab halka midna uu ahaa bahgaar. sidaa la jeed marka insha Allah biidhnaahi tabaaraka wa tacaala saddexda ugu horeysay ee daaleedahayd ayaan rabaa inaan mid ka taabto biidhnaahi tabaaraka wa tacaala si sagaalka kalena aan ugu sii socno haddii rabbi raali ka noqdo. noocyada ugu horeeyay ee daaleeda ahaa waxa uu ahaa ninka la yiraahdo dufle. ereyga dufle macna ahaantiisa qof walba uu iska sawiran karaa. macnaheeduna waxa weeyaan dufle waxaa la yiraahdaa qofka ma garanaysaa inta badan nadaafadiisa aad ku liidato, sida inuu labiskiisa aad u liito, sida ma garanaysaa inuusan qabaysan badana, inuusan ilkiisa iyo afkiisa uusan cadayn, inuusan maaragta waxyaabaha carfaya uusan ku dadaalin, had iyo jeer maaragta qof adigu maaragta kala dhiman inuu yahay, kabaha uusan casaysan, dharkiisa uusan fayraysnayn, waxyaabaha. maamaha Soomaaliya ayaa waxay ahayd aradna waa dan, ustigna waa daciifnimo ama waa doqonnimo, hadba sidii maaragta aad u garanayso. waxaa dhici karto adigoo awoodo heli kara maalin kasta inaad maaragtay dhar nadaafad leh labiskaagu had iyo jeer maaragtay waxaa doonta aad ka dhigi karto in maaragtay adigu daciifnimo kugu jirto iyo doqonnimo iyo magaranaysaa nadaafad xumo iyo wahsi iyo wax lamid ah in maaragtay arrinka aad u samayn karin. run ahaantii waxa weeyaan dadku ma ay jeclo bulshada qofka aad iyo aad nadaafadiisa ay u liidato. waxaa dhici karto inaad qof ad saaxiibtaan oo maaragtay dabeecad ahaan iyo dan ahaan maaragtay ay wax walba iskeen galaan. kasoo qaad qofka asaga markaad meeting la samayso waxaa dhici karto in jir ahaan aad usoo urto, neefta afkaaga ay urto, ama ma garanaysaa labiskaaga qaab ahaantaada intaba ma garanaysaa uusan qofka aanay soo jeedan. waxaa dhici karta inaad bulsho baabuur la raacdo. waad dareemi kartaa markii mararka baabuurada aad raacdaan ama rakaaba ahaadeen ama BL iyo wax noocaas ahaadeen, waad dareemi kartaa qofka kugu xigo in badan qof kasta inay ku dhacday inuu qofka aad iyo aad u shirkiisa u dhibsanaayo. sidoo kale markii iskuullada joogtaan fasalka waa arkaysaan ciyaalka kula fasalka ah kan kursiga kula soo fadhiisto, waxaa dhici karto inaad dhibsato maalin kastana aad iska ilaaliso qofka asaga inuu maaragtaa kusoo ag fadhiisto adigoo ka duulaya waxa cunugaas qofkaas ama maaragtaa kasoo shiira ama goobta shaqo ood maaragtaa ka shaqayso ayna sida ayada inay kugu qabsato. marka ma ahan wax wanaagsan. nabigeena calayhi salaatu wasalaam haddii xadiis saxiix uu ku yiri nadaafatu nisful iimaan, waxaana la sheegay dee nadaafadu inay tahay iimaanka barkii. haddii aad nadaafad xun tahay waxay ka dhigan tahay iimaankaaga qayb ayaa maqan, kaamil maba ahanba. sidaa dhaajigeed marka dufle magaca inaada qaadan ayaan kaa rajaynayaa biidhnillaahi tabaaraka wa tacaala. waxaad ka dambeyn aad ku dadaali doonto haddii aad ahayd nin tilmaamaha leh ama gabartaad noqotoba tilmaamaha leh haddii aad tahay inaad ka digtoonaato ka dadaasho in aadan qaadan magaca doqonta dufle. sidoo kale waxaa dhici karto biri ka maalin awlaad inuu ilaahay ku siiyo amaba aad leedahay ciyaalka ayaga kuma tarbiyin kartid nadaafadda iyo magaranaysaa sidii u labisan lahaayeen iyo sidii isku naashnaashi lahaayeen ama naftooda ay waqti u gelin lahaayeen. sababtuna waxay tahay haddii aad adigu amarto oo ficliyan aad arrinkaad samayso waxa weeyaan maba ka aqbalayaan amaba wax laga yaababa inaysan kugu soo dhicin leanna adiga ayaa isdaryeeli waaye. sidoo kale ooridaada xalaasha oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey ma ahan inay dhibsato nolosha ay kula qaadatay oo ah in maaragtay waqtiga aad maaragtay labadiina aad wada joogtaan oo gurigiina xalaasha aad joogtaan in ma garanaysaa gabadha ay maaragtay ku karaahsato oo adiga jir ahaan iyo neef ahaan iyo dhan kastoo tahay inay dhibsato. wax wanaagsanna ma ahan. waxaan rajaynayaa biidhnillaahi tabaaraka wa tacaala haddii aad ku sugnayd calaamadaha ayaga ah inaad ka digtoonaan doonto wixii aad ka dambeeya haddii aad muuqaalkan daawato. bulshada dhexdeeda markaysan kuu bixin magacyada soo socda sida uraaye, muqabayste, aradle, waxyaaba noocaas oo kale ka digtoonow oo ka dadaal naftaadana waqti geli. wabilaahi towfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waxaan rajaynayaa haddii aad janalka ku cusub tahayna inaad maaragtay nagu soo biiri doonto subscribe iyo like iyo share gambareelkana aad furan doonto si waxyaabaha aan soo wadna oo aan bulshada la wadaagayno dhaqan ahaan iyo diin ahaan intaba aad maaragtay nagala qayb qaadato haddii rabbi raali ka noqdo. haddii aad hore noola joogtay oo aad ka mid ahayd asxaabta nagu xiranna waad ku mahadsan tahay daawashada aad daawanayso. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.